have done that. قبل كفصدين Somaliyeed aan samayn Ethiopian iyo Kenyan iyo qeyrkii Soomaaliya dad bay laayeen way xawaaleen way dumiyeen lagama xisaabtan dib u heshiisiin baa la walaay what kind of dib u heshiisiin mujrimkii meesha way soo tagay jaahisu baraba wuxuu leeyahay 20 wasiir haddaan la isin waxa ma dhacaya waa mujrimkii soo dadka laayay wali lagama xisaabtan lama dhihin adigoo kale waxay ahayd xabsin taraqa lagu dhigo waxa sheegaysa halaysiyo wasiirnimo halaysiyo wasiiraan u qaybinayna wasiiro iyo xildhibaano baan u qaybinayna sayla ay kugu toosinaya la yumkin saxma arrinka waxa weeye oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala u dhigay in la samaysto nidaam la'aan waxba kuma soconaya war nidaam ha ku heshiiso ummad meel wada degan xal kale ma yeelanayso ama islaam ha sheegtaan ama wadaad ha sheegtaan ama wax kale ay idin akhriyaan qolo kaligeed meeshan qaadanaysa ma jirto ogaada wadaada xisbi hebel baan nahay la yiraahdaa annaga Ilaahay magaciisa ku hadalna wadanka Soomaaliya annaga kaliya xukumayna wax dhaadhacaya maaha wax soconayana maaha wax dhacayana maaha dad Soomaaliyeed ummad Soomaaliyeed yiraahdaa meeshan Ilaahay dajiyay Ilaahay baa u qoray dalkaanu u qoray qayb dhulkiisa intaan uga siiyay ma ku heshiinaysaan mase sidaan aad ku jiraysaan intaas un baa idintaan ma ku heshiinaysaan oo tartiib ma u wada cunaysaan ma ahlu sunna wal jamaa la yiraahdaayo waxa kale waa inay banaanka u baxaan ma annaga waxaan la yiraahdaa magac hebelo waxa kale waa inay banaanka u baxaan ma annaga waxaan la yiraahdaa dawlad hebelo waxa kale waa inay banaanka u baxaan that's not going to work my guy it's not going to work ma shaqaynayso ma jirto meel lagu gaarayo hadaanay heshiin meel lagu gaarayo dalkan waa la wadaagaa qofkan meel ka aado male hadaad banaanka u turtana gaalka uu ku soo adeegsanaya cid walbaana way soo adeegsanaysaa hadaad adigu cadaadiso banaanka u turto marka inay heshiiyaan waxa kama dhaxayaan waxaan nihaayada ku soo khatimaya walaalayaal innaga waxaan u baahanahay inaynu dib u fikirno Soomaaliya hadeena waxaan ugu yeerayaa walaalahay iyo naftayda haday yihiin wadaadada islaamiyiinta ah ee dhulka Soomaaliya kuwa jooga iyo kuwa taageersan wadaadadii mowduucan ugu qoray kulay waxaan u malaynayaa inay hadda dadka Soomaalida ah markii arrimahan oo kale laga hadlo sheega ka hadasho qolo xanaaqaysa waan ogahay I do not care that I don't care haddaan yiraahdo waxa la wado isnimo maaha kuwa xanaaqaya waan ogahay waxaan islaamka wada dagaalamay haddaan yiraahdo waxa meesha ka jira dawladnimo maaha wax dawlad lagu sheegana maaha kuwa kale way xanaaqaya haddaan yiraahdo kuwa gobolada isku sheegay gobolada ay joogeen bay waxba ka qaban kari waayeen madaxweynaha goboleedka kala waa la yiraahdaa gobolkiisa wax ka qaban kari waay do you know billahi alaykum aybtooda inay aamusaan weeye maalin dawlad waxa tagaysan Malaysia waxa jirta gobol yar oo laga gooyay oo Malaysia laga gooyay oo dadka muslimiinta lahaayeen oo la yiraahdo hadda Singapore waad maqasheen Soomaa waad maqasheen Singapore Singapore ma taqaanaan masaaxadeedu dhulahaan intay tahay please dadkina juqraafiga thaqaafada caalamiga ah la Soomaalidu waa wada siyaasiyiin do you know waa 624 kilometer square waay wadanka dhan oo lagu sheegayo la yiraahdo Singapore ma taqaanaa Soomaaliya meesha ka weyn Singapore dawlad ahaan waxa ka weyn gobolka Banaadir iska dhaaf Soomaaliya gobolka Banaadir just gobolka Banaadir baa wuxuu ka weyn yahay dawladda adduunka dawladaha ugu qanisan kamida ee la yiraahdo Singapore gobolka Banaadir baa ka weyn masax ahaan iyo dhul ahaan maaha Soomaaliya dhan maaha koonfur dhan maaha shabeellooyinka iyo Banaadir maaha just gobolka Banaadir baa ka weyn
isagaa ka biyo badan, isagaa ka beero badan, isagaa ka xoolo badan. 6,424 kilomitir ma laha biyo, ma laha oo baad, ma laha oo xoolo, ma laha oo waxay keensado batrool, ma laha biyaha dibadda looga soo daabulaa. still wallahi billahi waa ceeb adduunka, yani ceeb weeye ilaahay cidna ma dulmiyo. waa hadalkaan idinku bilaabaye Singapore 2011 2010 international transparency waxay ka soo gashay numberka 3aad adduunka ayay ka soo gashay. transparency, corruption la'aan. waxay la tartamaysay Denmark iyo Sweden iyo Finland iyo Norway iyo New Zealand bay number 3 iyo number 4 kula tartamaysay. Soomaaliya oo muslimiina oo sunna oo shaaficiya waxay ku jirtay the last in the list. 198 dawladood tan ugu dhamaysa corruption, baaba, tuuganimo, qashin. markaas waxa rabtaan ilaahay hadiyad inuu idin siiyo inay yiraahdo hooya dawladnimo iyo ammaan iyo nabadgelyo iyo dal hooya. that's nonsense. haba kama jiraan. sharciga ilaahay kuma jirto, kitaabka ilaahay kuma taalo. waxba looguma hayo Soomaali, kitaabka ilaahay wax looguma hayo. dad tuuga waxba looguma hayo, dawladnimo looma hayo, qarannimo looma hayo. dad tuuga waxba lagu soo gaareen looma hayo, iyo kuwa taageeraya dabana shaqaynaya u saacadumaya. PhD holders, masters baa waxay u saacadtumayaan juhalo waddankoodii baabi'inaya. iyagii bay baryayaan, iyagii bay tuugayaan, iyagii bay leeyihiin safiir iga dhig, wasiir iga dhig, hebel iga dhig. muxuu kaa dhigaa? He's nonsense. waxaa weeye marka walaalayaal, ummaddan hadday doonayso inay wax noqoto, anigu hal shay un baan u hayaa oon ku soo khatimayaa. inta kitaabka ilaahay aan ka garanayo ama inta aan khibrad ka arkay adduunka inta aan marayay. walaalayaal, waxaan soo maray jaaliyadaha Soomaaliyeed ee diasporada ee adduunka jooga, meel aanan u tegin ma jirto. inta aan ogahay waxaa ii dhiman New Zealand iyo Australia, Europe oo dhan, Africa oo dhan, North America oo dhan. Soomaali meel ay joogto waa soo maray, warkeedina waan idin hayaa. waxa xagga idinka jirana gudaha idinka jirana warkeedii waa idin hayaa. الرائد لا يكذب أهله. بين إذن شيء ما والله الذي لا إله غيره إننا بين إذن شيء كريم. هدي اللي يراهو جودها الصومالية حتى ضدك يسكو هايستا وأغنى لما فكشن با كونفورت يسكو هايستا لما ميلادو كلا وقبول الدجان حدنا وحكجرا نسبيا حوجا النبتقلية الأمان هي حوجا بكجرا هوس مركانو سو دغنو oo dhinaca hoose nimaadno dawladnimo ka soo socota been way waxba kama jiraan islaamnimo ka soo socotana wax daacadnimo oo ka jiraan ma jirto runtan idin sheegay wallahi alladhi la ilaha illa inana been idin sheegay mana been idin sheegi karo diinteydana inaan been ka sheego uma soo fariisan meesha ee waxa weeye marka dadkiina diasporada ana waxaan idin leeyahay إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وما هداني اسبدلين إلى حالة دين ما بدله. اسبدل ديار مؤتهين هدا اسبدل ديار مؤتهين حالة دين إلهي وبدلية. تاسوا قلب. اسبدل كلام نقول هرت التاجرة ضدك عن تاجرة مضمين أتصير إنسان. بنت اللي يكون شيء ويب سايت يلا إيه هذا الله إيه تلفون الله وأنا صمين وأنا قبلنا وصوص عطا هل كانوا كوضنا وحبا ماشى إذن كمتشرين I'm telling you the truth واحد إذن كتشرين متشرين ماشاس هذا واحد قبصنا إنسان واحد قبصنا ويسكت الشلا تاسوا قلب كلا وضوح هويه meesha aad joogtaan iyo dalalka aad ku nooshihiin iyo xaaladaha idin haysta iyo caruurtiina iyo ubadkiina gaangiska noqonaya iyo caruurtiina iskuul la'aanta ah iyo danihiina dayacan siya priority-ga anu taasaan idin leeyahay priority-ga siya reer Minnesota hadaatiin Minnesota waa meesha ugu badan yihiin Soomaalidu diasporada London ka dabo waa meesha ugu badan tahay danihiina ka tashada reer Minnesota ahaan anu taasaan idinku naseexaynaya caruurtiinan say iskuul u helayeen af Soomaali say u baran lahaayeen say u xifdisan lahaayeen diintooda iyo dhaqankooda
iyagoo halkaa joogo maraykan ah say u xafidan lahaayeen, saa idinku u deganaan lahaydeen, saa wax u baran lahaydeen, saa isugu duubnaan lahaydeen, saa idinku u dhaqmi lahaydeen idinkoo muslima. taas ka shaqeeya. 11 kilomitir 11,000 kilomitir dalka idin jira ee taararka laydinku soo sheegayo beenta aan waxba ka jirin. walaalayaal priority-giina labaad ama saddexaad ama afraad ama shanaad ka dhiga. anu taasaan idinkula talina. dadkiina makhaayadaha fadhiya, odayaasha makhaayadaha oo siyaasadda Soomaaliya ka shaqeynaya oo carruurtooda gaankiska noqdeen, there shame on you, shame on you, shame on you, shame on you. carruurtooda gaankiska noqotay oo aan ogeyn iskuulkay dhigtaan aan garanayn, oo af Soomaaliya inay xataa ku hadlaan aan garanayn, oo Starbucks-ka intuu fadhiyo wasiir heel ma laga yeelay oranaya iyo xisbi heel halkaas uu ka dhacay oranaya shame on you. ka shaqeey ilmahaaga waajibkooda, ka shaqeey ilmahaaga horta. iyaga ka dhig dad dad muslima oo waddankan degan oo wax ku barta oo nafle oo Soomaaliya ka dhig. wallahi billah waxaan garanayaa niman ka shaqeynaya oo leh Soomaaliya wax ka dhigaya, Soomaaliya wax ka shaqeynaya, Soomaaliya wax ka yeelaya leh, oo London fadhiya, oo Minneapolis fadhiya, oo Melbourne fadhiya, oo Nairobi fadhiya, oo Johannesburg fadhiya, kullu waa Soomaali oo fadhiya oo aan waxba ka qaban karin Soomaaliya. carruurtiisii, xaaskiisii, reerkiisii, diintiisii, mas-uuliyaddiisiina dayacay. bulshada Soomaaliyeed inay joogtaa maxaad u qabataan? I'm asking you, maxaad u qabataan? ma isku duubantihiin? wax ma isweydiisaan? dalkan 100,000 baad magaaladan ku joogtaan, maxaa xuquuqoo aad qaadataan? American system wuxuu idin ogolyahay xuquuq badan, maxaad ka qaadataan? waxaad u kala qaybsan tihiin faction hebel iyo faction hebel iyo faction hebel iyo faction hebel. what the hell you are doing? soo meesha ka soo cararteen ma soo idinku cagacad ma soo gelin, soo idinku cayra ma soo gelin, ma dad noqotaan oo dalkiina markaa hagaajisaan, ma dad noqotaan. walaalayaal marka dhegaysta, bilaahi calaykum sheeka baranayna in loo imaan, bilaahi calaykum umadana yaa la dhumin, bilaahi calaykum ilaahay baa idinku dhaariyay. ilaahay ha laga boqo Soomaaliya, ilaahay ha laga boqo, ilaahay ha laga boqo. haddaynan isbedelin wallahi alladhi laa ilaaha ghayru inaan wax isbedelihin, xaaladanu inaan isbedelin. anigu warkayga intaasaan idinku soo gabagabeynaya. idinkana Soomaaliya idinkaa wax ka dhigi kara haddaad doonaysaan inaad dowlado badan baa adduunka dibadda laga dhis. anigu waxaan hal shay baan idin akirayaa, dadka halkaa ay wax ka sugaysaan wax idinma soo wadaan. wallahi inaan wax idin soo wado, wallahi inaan idinka fikirayn, wallahi balahaad ku dhimateen, kuwa kale waddaday soo hayaan, saxaraha Libiya ku dhinteen, balaha Talyaaniga ku dhinteen, qaxootiga Kenya ku jiraan malaayiin. yaa ka fikiraya? ii sheega kuwa gudaha ku jira ma ka fikiraya? kuwa xamar ku dagaalamaya ma ka fikiraya? diinta ilaahay baa been laga sheegay. وهاد عيد وحوقبا قفك الصومالي المسلمك وحوقبا هدان وحوقبا كريم هدان قوضين كريم هدان تعليم حوقبا كريم أقوم كيس هدان ضيق كريم ولا علي روح قحين ولا علي روح الدين ولا علي روح بابين ولا علي روح دل كيس حكبابين